بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الطلبة والطالبات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaynu ku guda jirnay ama aynu qaadanaynaa haddii alla yidhaahdo maanta maadadii luga alcarabiya galaaskii lixaad. waa maalin axada ay ku beegan tahay taariikhda hijriyada 3 bisha ramadaan 1440 oo ku beegan miilaadiyada 25 bisha afraad 2020. waxaynu qaadanaynaa oonu soo qaadanay qaybtii hore aynu soo qaadanay mawduuceennii ahaa almuxaafadatu cala asixa, in la ilaaliyo amba la dhowro caafimaadka, in la ilaaliyo amba la dhowro ayaynu qaadanaynaa. macaani kalimaad sida aad arkaysaan waxa halkaa ku qoran macaani kalimaad, kelimadaha macaanidoodii kelimadaheenu soo qaadanay. alkelima waa kelmadii, almacnana waa macnihii. kelmadda la yidhaahdo yastaximu kelmadda ah waxa la macno ah wuu maydhanayaa weeye macnaheedu. waxa la macno ah yaqsil wuxuu maydhayaa jismahu jirkiisa ayuu maydhayaa, waxaanu ku maydhayaa bilmaai biyo ayuu ku maydhayaa. alminshafar waxaa la yidhaahdaa waa tuwaalkii iyo wixii la mida. macnaheedu waxa weeyaan maa yujafafu bihi, waxa lagu qallajiyo maaul jismi, jirka biyihiisa lagu qallajiyo. biyaha jirka saaran markaad maydhato waxa la iskaga qallajiyo ayaa waxaa la yidhahdaa minshafa. asahr kelmadda sahr waxaa la yidhahdaa soo jeedka amba saamaleylka. waxaa la mida cadamu noom, hurda la-aan. cadamu noom waxaa la yidhahdaa hurda la-aan, ama ariq waxaa la yidhaahdo waxa weeyaan waa hurda la-aantii. almughadiyati ee jirka nafaqada siisa waxaa laga wadaa almufiidati ee faa'iidada u leh liljismi jirka. assaakhin kelmadda waa saakhinku waa wax diiran weeye, diiran. waxaa la mida iyadana addaafi, diiran. ataqalubaat waxaa la yidhaahdaa isbedelada amba taqayuraadka ku yimaada waxyaabaha. ataqalubaat markaa maxay noqonaysaa? waa isbedeladii. waxaa la mida ataqayuraat oo ah iyadana isbedeladii ayaa la mida. alkhatiira waa khatarta, waa waxa khatarta leh ama khatarta ah. waxaa la mida daatu lkhatar, khatar leh. alcadiimi ee weyn, khatar weyn leh ayaa la mida. qaybtaasi waxaynu kaga baxaynaa haddii la yidhaahdo qaybtii macani kalimaadka. waxaynu u gelaynaa qaybtii kale tadriibaadkii amba su-aalihii. waxaa lagu yiri ajib ka jawaab can ilasilati su-aalaha alaatiyati ee soo socda. su-aasha koobaad waxaa lagu yiri mal athar, maxay tahay raadka amba saamaynta alladii kaasoo yatrukuhu uu kaga tagaayo assahru soo jeedka uu kaga tagaayo fii jismi linsaani jirka bini aadanka uu kaga tagaayo. soo jeedka ama saamaleylku saamaynta amba raadka uu ku yeelanayo jirka bini aadanka maxay tahay? su-aasha labaad waxaa lagu yiri mal adraar, maxay tahay dhibaatooyinka? darar, adraar waxaa la yihahdaa waa dhibaatooyin, waa jamciisii weye, waa jamcu darar weeye. mal adraar maxay tahay dhibaatooyinka? allatii taasoo tuntiju ka dhalanaya min idkhaali tacaami, cuntadii in laga dulgeeyo cala tacaami, cunto kale. calooshaadiiyo cunto ku jirta in cunto kale aad ka dulgeyso, dhibaatooyinka ka dhalanaya maxay tahay? su-aasha afraad waxaa lagu yiri mal anwaac, maxay tahay noocyada almughadiyati ee jirka nafaqada siiya oo min al atcimati cuntooyinka la isticmaalo ka mid ah. cuntooyinka la isticmaalo ee jirka nafaqada siiyaa maxay yihiin noocyadoodu ayaa lagu yiri. su-aasha afraad waxaa lagu yiri maa faa'iidatu lmuxaafadati, maxay tahay faa'iidada in la ilaaliyo cala al asnaani, ilkaha faa'iidada ku jirtaa in la ilaaliyo maxay tahay? su-aasha shanaad waxaa lagu yiri kam maratan, imise jeer ayaa tastaximu maydhataa fi ayaami shitaa, ayaamaha jiilaalka imise jeer ayaad maydhataa? wa kam maratan, imise jeer ayaa tastaximu maydhataa fi ayaami sayfi, ayaamaha xagaagana imise jeer baad maydhataa? cashirkeeni markaa halkaas aanu ku joojinaynaa. ilaahay soonka aanu ku dhagada jirna ha inaga aqbalo.